kala beddelkii xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxa ay dhalisay inay soo baxaan jihooyin isku haya doorashada cidda amarka leh iyo sheekada xiisaha leh ee ah in dhammaan maamuladu ay leeyihiin madal ay ku midaysan yihiin taasoo loogu talagalay inay u ilaaliso danahooda arrimaha doorashada ee sanadkan inkasta oo midowga musharaxiintu soo wada dhoweeyeen beddelidda 7 xubnood haddana xubnaha la beddelay iyo kuwa la keenayba aragtida u janjeeridda dhinaca nabad iyo nolol u dhowaanshaha ah kuwa cusub ee la keenay qaybo ka mida ayaaba sii xag jirsan ay leeyihiin dadka xubnahan falanqaynaya eryiddii ra'iisul wasaaraha ee xubnaha guddiyadu waxa ay bannaan ka keentay 2 qodob kow in ra'iisul wasaare Roble dhankiisu ay si adag u doonayeen celinta kursiga hoob 67 balse madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo maamulkiisuba ay si adag uga hor yimaadeen waxa ay keentay in marar badan labada dhinac isqancin waayaan sida ay wax u socdaan waana arrin kala duwanaanteeda kuraasta dambe oo dhan ay ka muuqan doonto 2 isbahaysiga maamuladuna waa qodobka aan eegayno ee hadda soo baxay muddadii ay howlaha doorashadu socdeen hal arrin ayay dowlad goboleedyadu ka midaysnaayeen waa inay awoodda doorashada iyagu lahaadaan cid kasta oo kale ay marti uga ahaato dhinacyada ay taageerayaan iyo farsamada haba lagu kala duwanaadee aragtidooda ku saabsan maamulka iyo maaraynta doorashadu waa u laba taabtaan waxa ay siiyeen kuraasta aqalka sare saaxiibadooda siyaasadda eheladooda ama xubno ay dana kala dhaafsadeen 3 ka mida maamuladu waxa ay han ka leeyihiin doorashada soo socota ee madaxweynenimada Soomaaliya waana tan keenaysa in ay si wadajir u ilaashadaan hanaanka iyo habraacyada awoodda badan ee ay siiyeen Agoosto lana saxiixay bishaasi dhamaadkeedii 3 qodob ee heshiiska maamuladu ku jiraan ugu muhiimsan ayaa kala ah kow waa inaan la helin awood la maamusha kuraasta sida ay rabaan ay u dhigaan madax dhaqameedyada qortaan ergada tifaftiraan kadibna liiska ay rabaan ay soo saaraan 2 kursi kasta oo maamulku soo saaray inuu yahay ansax cid kasta oo ka keenta dacwad maamuladuna si wadajir ah isaga kaashadaan isku hiilinteeda waxa ay leeyihiin shuraako xubno ah oo miiska khilaafaadka wax weyn uga goynaysa waa arrin keentay inay soo shacbaxdo kala duwanaanshaha maamulada iyo ra'iisul wasaare Roble keentayna in xukuumadda federaalku ay bedelato 7 ka mid ah xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka ee dhankeeda ka yimid bilowgiiba 3 jihaynta codadka ay soo saaraan waxa ay ka midaysan yihiin inay mustaqbalkooda siyaasadeed ku duldhisaan doorashada soo socota madaxweyne kasta waxa uu tolanayaa labi siyaasadeed oo hadhow kaga dhunto eedaha iyo garaafooyinka ka dhasha doorashada iyo xataa dagaal dambe oo uga yimaada fiilada dhinaca kale run aanshaha marxaladda doorasho dadban waxa shalay meel fagaara siyaasadeed ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar oo lagu yaqaan inuusan qasan waxa dhabtu tahay dabageed waxa uu tilmaamay in kursi kasta oo ka mid ah 275 xubnood ay u wataan shakhsiyaad meel ugu qoran waliba waxa uu sheegay in qabiilka iska leh unay dadkaasi ka imaanayaan dadka la socda arrimaha doorashooyinku sida ay ku socdaan ayaa leh waa dhabta runta ee ay aaminsan yihiin madaxda dowlad goboleedyada ayna garawsadeen in dhankooda ay martay shukaanta doorashada markii la meel mariyay habraacyadii Agoosto ee doorashada kaas oo ilaa iyo hadda lagu shaqeynayo ugu dambeyn lama oga isbahaysiga awoodda badan leh ee ka dhex jira dowlad goboleedyada sida Roble ula shaqeyn karo oo hogaaminta uu wax uga bedeli karo tallaabadii uu shalay qaadana waxa ay wajiga ka fayday sida ra'iisul wasaaruhu uusan awood ugu lahayn inuu farageliyo guddiyada doorashada heer dowlad goboleed ama kuwa heer federaal ee ka yimid dhanka maamulada isbeddelka uu sameeyana dad badan ayaa u arkay cimri dherersi siyaasadeed iyo waxqabad la'aan ka jirta dhinacyada kala duwan ee doorashada tan ugu daran waxa ay ku sifeeyeen saaxiibada kala guurku marin habaamin lagaga gudbaya xaaladda taagan si kasta ha ahaatee dhacdooyinka dhacaya ayaa fasir looga dhigayaa qowda maqashii waxna ha u qaban ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda